Hinaasuhu mar walba astaan uma aha jacayl. Marka ay gabadhu hinaasto way oydaa, marka uu ninka hinaasana wuu aamusaa. Marka ay gabadhu hinaasto waxa ay karaahiyeystaa ninka, marka uu ninka hinaasana waxa uu karaahiyeystaa naftiisa. Maseerku gabadha ninka waa uu nacsiiyaa, laakiin ninka jacaylkeeda ayuu ku sii kordhiyaa. Mararka qaar waxa uu ninka ka hinaasaa gabadha jecel xitaa haddii aanu isaga jeclayn. Gabadhuna sidoo kale. Hinaasa qofeela waxa ugu fiican ka uu sababo jacaylka, waxaana ugu xun midka ay xaasidnimadu sababto. Hinaasaha gabadha waxaa lagu gartaa kuleyl iyo carro, ninkana waxaa lagu gartaa aamus iyo qabow. Marka gabadhu aragto nin ay jeceshahay oo u hinaasaya way faraxdaa, laakiin marka ay aragto nin aanay jeclayn oo u hinaasaya waa diiqadoota xitaa haddii uu isagu jecel yahay. Ninka waxaa lagula talinayaa in jacaylka uu gabadha u qabo aanu ku muujin hinaase haddii aanu hubin in ay la wadaagto jacaylkaas, waayo waxaa dhici karta in qiimahaaga ay fahanto oo ay ku adeegsato. Jacaylka badani waxa uu dhalaa hinaasaha badanina waxa uu dilaa jacaylka. Hinaasaha intiisa badan waxaa keena shaki. Haddii aad is aragto adigoo aad ugu hinaasaya qof, aad isu hubso, waayo waxa ay u dhowdahay in aad jeceshahay oo aanad is ogeyn. Haddii aad rabto in aad xaaskaaga ama gacalisadaada aad muddo dheer wada joogtaan, iska ilaali hinaasaha.